marka daadaadu waa imisa nimco 24 sano jira 24 jir baa tahay waa tahay dadka qaarkood waxay daadaada ku sheegayaan ilaa 19 sano ma jiraan 24 sano jira waa tahay magaciisa ninkaasi wiilkaad u dhashay magaciisa runta Siiso Joshua waa tahay marka daadiisa imisaad ku qiyaasi kartaa adiguna aniga daadiisa ma qiyaasi karo adiga daada aabe kale ahaa company xoogaa jir waa hagaag haddaba haddii aan ku weydiiyo nimco sidee ku bilaabatay xiriirka adiga iyo ninkan idin dhex maray xiriirka wuxuu ku bilaabay nin dhakhtarka aabe ahaa wuxuuna yiri maxaa la haddii aartid inaad ku daaweeyo aabaha anagoo isbuuc ku jirno in maxaa la aad ku guursado waa tahay marka ma isbitaalku madax ka ahaa mise ciidamada isbitaalka joogu ahaa mise dhakhaatiirtu ahaa mise kalkaaliyu ahaa horta ninku marka hore muxuu ahaa aniga ciidamada ma kala aqoon xili markaasi toolo qof mashquulsan ahaa laakiin sidoo asiga uu sheegay nin oo madax u ahaa oo islaamayo ahaa waa tahay marka markii ugu horreyseed isbarateen xaggay ahayd iyaa kula joogay maxaanad ku wada hadasheen anigoo isbuuc camal ku jirno oo ninkan wuxuu yidhi maxaa la daawada intuu isiiyo warqad orod suuqa bakaaraha ka doon suuqa bakaaraha markaa daawada ka doon waxaa la muqdisho dhan ma taalo soomaaliya dhan ma taalo daawadaas hadday taalana waxaa la gadaa $150 ma laga helo daawada markaa usoo noqday oon dhahay daawada ma laga helo soomaaliya waa ogaayu yiri daawadaas inaan laga helin soomaaliya ees oolin marka saa inaa aragtidaan kugu diray markaan dhahay warqada waa laygu dili gaarin nimanka al-shabaabka ah igu dili gaarin maxaa igu dirtay markaan dhahayna wuxuu yiri inaa kusoo tusaale qaadatidaan rabi ani warqada aragtid daawada aabahaba ayay maadaama uu xanuunsanayay waxaa la yidhi daawadan waa tii bogsiin lahayd isaga daawada kansarka eed marka daawada magaceedii ma xasuusataa warqada wuxuu kugu qoray ani ma xasuusta ani mana aqoon uma lihi daawadaas magaceeda waa tahay markaad ka soo weyday suuqii bakaaraha isagaad ku soo noqotay wuxuu ku yidhi waan ogaay inaanad soo noqday asigaan dib ugu soo noqday asi markaa kusoo noqdan wuxuu yidhi waa ogaayu yidhi inay daawadan oolin soomaaliya marka wuxuu yidhi daawadan waa hayaa yidhi laakiin haddaa ku siinaa waa shuruudu yidhi hadda markaa shuruuddaas akasoo baxdaan ku siinaa markaa dhahay shuruudda maxaa waayan wuxuu yidhi waxaa rabaa yidhi inaan ku guursado markaa ku guursadaan daawadaas ku siinaa yidhi aabaha siinaa markaa guri ka diidana wuxuu ii qoro warqad oo maxaa la nalagu bixinaayo saacadaha oo markaas soo socda oo nalagu bixinaayo banaanka nalagu bixinaayo waa tahay markuu ku leeyahay waxaan doonaya inaan ku guursado ma aabbaha hortiisii kugula hadlayay mise meel gaaraa tagteen maya meesha oo dadka oo dhiigga uga cabiro oo xasiiskiisa ah waa tahay maxaad isku fahmayseen markaad luqadeed ku wada hadlayseen waxaa jooga wiil soomaali oo turjubaana dabeetana waxaad tiri warqad baa lasoo saaray aabbaha isbitaalka looga saarayo warqadii aa nala siiyey warqadii markii nala siiyey wiilka turjubaanka wuxuu yidhi maxaa la dhahaa ka fiirso hadalkan ninkaas wuxuu ku leeyahay iska yeel aabbaha bixinin markii dambena waa ogolaada ani marka inaad ogolaato ma wiilka turjubaankuna qalqaal uu ku geliyey si aabbahaan laguu saarin in ninkan aad guursato waa tahay marka maxaa dhacay markii oo aan yeelay oo ninkiinaan guursada aa yeelay daawooyin badan oo aaba siiye wuxuu u sameeyey baasboor oo lagu soo qaadayo guurkiinu siduu u dhacay bal arrintaasaan doonaya inaan ogaado siduu u dhacay guurku wuxuu u dhacay ninka oo turjubaanka ahaa wuxuu keenay 2 nin oo maxaa la dhahaa soomaali ah wuxuu yidhi aniga muslimmaa ahay waana guursanaa diinta islaamka ku guursanaa xataa wuxuu yaqaanaa qur-aanku yaqaanaa markii aan dhahno qur-aanka u akrinaayana ma marna ku akrinaya ma marna ma akrinayo waa tahay xaggee lagugu meheriyay adigu meeshu waxaad tidhi waa meel ciidan waana isbitaal meel ciidan oo isbitaal ah waaye meesha teendooyinka laleegu meheriyey marka meherka adiga markii lagu meherinayay labada wadaad iyo ma ag fadhiday waa ag fadhiyey markaa raalli baad ka ahayd raalliyaa ka ahaan waa tahay aabbaha iyo faamilkiinu ma kula ogaayeen maya lama ogeen familkeena maxaa yeele ani aabbe intuu dhal anaa uweyn anigaa go-aankaas iska gaaray si ugu hela aaba daawadiisa aabba daawadiisa helitaankiisa ka sokow adigu soo gabar ma tiidoo soo xitaa sharcigii muu ahayn in lagu bixiyo ama haddaanu aabahaa joogin adeerada ama qof walaayadaada haya inuu bixiyo soo may ahayn way ahayd laakiin ayaka ninka turjubaanka iyo nimanka oo meherka sameynaya waxay dhaheen haddaa guur hore usoo martay oo ku mehersantaa ninkan markaa horaad sheegaa guur hore ma usoo martay hayaan dhaha guur hore usoo maray marka guurkaagii hore imisuu qaatay carruurna ma ku dhashay 2 wiil marka teendadii baa lagugu dhex meheriyey teendadii lagu dhex meheriyey ku dhamaadan daawooyin fiican oo aaba siiye iyo maxaa la dhahaa si fiican ugu dadaalay waa tahay marka intaanan dawada gaadhin meherkaasi markuu dhacay dareenkaagu siduu ahaa
أنا درينكي مكو فرح سنين وحقيقي سوحواي داود كليها لأعبر بتانكي marka maaruur أنا منك مكو فرح سنين maaruur baa lagu أنا أكون قفات تقاني ذاك فرح سنتا maaruur baa lagu meheriyey mise galab قرابة لي مهري dabeete maxaa dhacay markaa محمد واليوم مهري لبس لمنك ودادة العكسين وسي أسي منك ترجوانك سيدي كبح marka adigu منك سكورتك أو مياش كشقية وسعيدين محل أرمى جفت مقلنك انت سكورتك او ويديني سؤال ويدين اساي ما له في روحي لو ويدي waxba kama jiraan leh waa tahay marka meesha lagugu meheriyey wadaadada iska bixeen lacagtooda qaateen adigu ma ninkii lagugu meheriyay aad la hadhay oo la joogtay meherka markuu dhaca hore ninka miiga tagin ani waxa ku noqda aabaa ku noqda bariita sano ka dambeysay waa marka ii waxay marka wicitaankii maalmaha ka dambeeyaad kulanteen imse jeer sidaad u kulmi jirteen ninka marka ma meeshuu degan yahay baad la degtay mise kolba xeradu joogay iyo meesha isbitaalkaad ugu iman jirtay meesha taandada oo daawada uu ku bixinayo oo daawada markay cidlo ay noqotay wici jira oo dhihi jiray imaam waa tahay habeenka aan diido oon ka kinda adeego oon diidan oo soo dhaha sidii daawo aad siin jiray marka anigoo qasana aan raaci jiraa oo wuxuu rab iga samaysan jiray marka uurka waxaad qaaday intuu aabbahaa noolaa intuu aabba noolaa markaad aabbaha muxuu xaaladiisu ku dambaysay markii ninkii aad ka ogolaatay inaad guursato waxaad tihi dawooyin baa la siiyey aabbaha xaaladii aabbaha maxay ku dambaysay aabba xaaladiisa sida daawo hadday noqoto daawo fiicana la siiyey laakiin waktiga u dhinta aabba marka aabba wuu geeriyaadaa ilaahay ha u naxariisto dabeete adiga maxaa kugu dhacay marka ani dhibaatooyin badan aan la kulmay dhinaca al-shabaabka soomaaliya waa tahay familkaaga markaad eegto adeerada ama habaryaraha iyagu ma ogaadeen in aad nin guursatay ciidamada amisom ka tirsan oo ugandhaysa way ogaadeen hooyo iyo walaalahay way maqleen maxay dareemeen marka hooyii markaa u sheegay arrintaasaa u sheegay hooyo igama xumaan hooyo waxay ogeed arrinta lacag la-aanta neesta iyo marka waxay dareemayeen in duruuf markaa jirtay darteed aad u gashay arrintan waa tahay markaa nimco xaggeed ku umushay marka maxamar baad ku umushay mise waxaad ku umushay kambala soomaaliya ku umulay imise jir weeye marka waxaa la ii sheegay inaad dhashay wiilkaaga waa imise sano iminka wiilkayga wuxuu jiraa sanadii 5 bilood jiraa waa tahay marka dee reerkiina waxaad igu tiri soomaaliya joogaan iminka hooyaday walaalay soomaaliya joogaan aniga falkaas sameeyey darteeda qaab loo marsiinaya iyaga maxaa soo gaaray marka iyaga maxaa lagu sameeyey ayaga dhibaatooyin badan ay la kulmeen hadda wiil walaalkii xataa waa la la'aa inay wateen ciidamada al-shabaabka lama yaqaano mid way xirteen wuu u xirnaan jiray iyo hooyo way u xirnaan jirtay qaaka hadda way fiican yihiin waa tahay marka dhibaatadaasi adigana kugu dhacday faamilkaagana la gaarsiinayo kolley qadarta eebana way ku dhacday laakiin adna sababteedaad lahayd marka maxay kula tahay baad u malaynaysaa markaad dhibaatadaasi eegto faamiligaad gaarsiisay ee madaxaaga ay ku dhacayso ma waxun baad samaysay mise wax wanaagsan baad samaysay ani mid haddaa fiiriyo wuxuuna sameeyey waalidka iyo hooyada walaalaha iyo hooyada laqa qabsanayo way dhibaysaa mid haddaa fiiriyona wax fiicana sameeyey aabe iyo ciddeen wax la-aanay ahaayeen marka saasoo ogolaanino waa tahay adiguna waad ogeyd in ay marxaladda soomaaliya adag tahay ciidamada ajanabiga meesha jooga la xiriirkooduna uu dhibaato badan keenayay marka miisaankaad isi saartay inaad aabbaha badbaadiso oo aad arrinta ninkan ka ogolaato iyo cawaaqibka ka dhalan kara weli ma xisaabtantay mise waxaa markaa kula weynaa xanuunka aabbo xanuunka aabba ila weynaa waa hagaag marka reerkiina hooyada